Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay beeraha Soomaaliyeed qaabka loo dhaqdo. Soomaalida ma ka faa'iidaystaa beeraha qaabkay u dhaqdaan ama kama faa'iidaystaan? Maxaa cilado oo haysto beeraleyda Soomaaliyeed iyo dhibaatooyinka ay ka dhaxleen beeraha? Arrimahaasoo badan waa in la isweydiiyaa qaabka ay ugu baxi karaan. Dhowr siyaabood waa in la isweydiiyaa. Maanta waddankeena iyadoo kheyraad badan leh baa wadankii wax meelo kor laga keenaa oo suuqyada Soomaaliyeed ugu cariiriyay. Dadkii wax beera lahayna magaalooyinka bay kaamun qaxooti bay ku jiraan. Marka dhibaatooyinkaas qaabka loogu bixi lahaay, qaabka ugu fudud ee dowladda ee dadka shaqo abuur ugu sameyn lahayd. Maanta beeraleyda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin shaqaalooyin. Ardayda Soomaaliyeed midka maanta jaamacadda ka soo baxay maanta wuxuu rabaa adiga markuu shaqo raadsanayo inuu ka bilaabo xafiis. Beeraleyda Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin shaqaalo, qof wax soo bartay, aqoon leh. Maanta dadka beeraleyda waxay u badan yihiin dad aqoon san lahayn, waxayna rabaan dad aqoon leh oo u shaqeeyo. Qaabkee la isku xiri karaa beeraleyda Soomaaliyeed iyo midka wax bartay?